horta qorshahan waa laba qaybood golaha guud waxaynu kaga doodi lahayn iyo waxa ay soo gudbisteen gudiyada golaha guud maadaama aan guddigii ku jiray waxaan ugu sameynay date in guddi walba iyada oo date kan fiirinaysa ay ku apply garayso iyaduna date ka kale waqtigii ay samaysanayso ay ka dudo maalmaha shirarka guud la leeyahay waxaan qabaa kan golaha guudna in wax lagu soo kordhin karo oo aqalkan uu u baahan yahay doodo ka badan kuwa meesha ku qoran marka loo eego xeer hoosaadkaba ha ahaato iyo dastuuriyanba waxaan xaq u leenahay in doodo badan iyo wax badan lagu soo kordhin karo kan kale oo guddi walba iyagana hay isku noqdeen gudiyada ay wax ka maqan yihiin ama error ku dhacay wax maaragtay khalad ka dhacay inay isla qaataan ka soo doodaan laba bari kadibna maadaama asbuuc bay noo harsan yahay kulankeena ugu dambeeyaba ha noqday aan isla soo noqono anigu saasaan qabaa waxa weeye marka group wax soo diyaariyo waxa ka wanaagsan waxa dhammaan aan isla qaadano maadaama teemka soo socdo waxaan ku shaqayn lahayn uu yahay anigu saasaan qabaa kan guudna wax kororsi uu u baahan yahay oo amnigii iyo waxyaalo badan ba hadda ka maqan oo aad muhiim u ah oo priority in la siiyo wasaaradaha November bay ka bilaabanayaan waxaan istusnay 3 bilood ila wasiirka kaliya maaha ee wasaaradda iyo agaasinkeeda warbixinta bixin doona inay waqti tahay laakiin abaaraha iyo waxaan soo hormarinay xeer hoosaadka iyo mataqaana dastuurkan waxaan isleenahay ayaamahan haddii la sameeyo bal meesha wax marayeen maadaama guddoomiye naga mid yahay inaan meesha wax marayeen laga bilaabo halka maaragtay warbixintaas ay ka anba qaado priority-ga saasaan u siinay marka labadaa bari waxaan ku talin lahaa in labadaa bari kan guudna aan maaragtay qaadano oo wixii aan ku darayno lagu soo daro oo isleenahay waa ka maqan yihiin ka gaarka ana guddi walba ha soo fariisato oo wixii discussion ah ka gasho sidaasaan ku talin lahaa waa